آخرة حسوسنو dadka aakhirada ugu yeedh mar walba labada qalbigeena haday ku weynaato macsiyadu way yaraan oo taacada ayaa badan qofku hadduu mar walba ilaahay xasuusan yahay oo aakhirada xasuusan yahay bay culimadu yidhaahdeen saddex sifa ilaahay siiya tacjiil at-tawba qofka mar walba ilaahay xasuusan inuu dhimanayana xasuusan baa la yidhi qofkaasi toobada waa u degdegaa toobada dib u dhigi maayo wuu degdegi sifada labaad ee ilaahay uu siiyay ma taqaanaa qofkaas qanaacatun fil qalbi arsaaqada iyo adduunyadana inta ilaahay uu qadaray ayuu qofkaasi raalli ku noqdaa tasaddexaadna baa la yidhi hee annashaatu fil cibaada taacadda ilaahay buu qofkaasi u jajabnaanayaa inaad salaadu kuu dhib yaraato oo soonku kuu dhib yaraado oo qur'aan akhrisku kuu dhib yaraado oo fadhiga masjidku kuu macaanaado oo diinta barashadeedu kuu dhib yaraato oo camalfalka diintu kuu macaanaato waxa keenaya waa haddii qalbigaaga mar walba ilaahay aad ku haysid aakhiraduna ay ku hor taallo labadaasi haddii qalbigeenna ay ku yaraatana saddex cuquubo qofka ku dhacda saddex cuquubo cuquubada koobaad waxa weeyaan baa la yidhi toobaddu ayuu dib u dhigtaa horey u toobad keeni maayo ilaa waad dhimanaysaa isma leh muxuu isleeyahay waad noolaanaysaa buu isleeyahay qanaaco ma yeelanayo qalbigiisu qanaaco ma yeelanayo waxa adduunka maal yaallo oo dhan siduu ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn mana helayo halka ka qalbigiisa aakhiradu ku weyn tahay cibaadada iyo taacaddu u dhib yaraanaysana kana waxa ku dhacaysa alkasalu fil cibaada cibaadadii ilaahay baa ku noqonaysa culays miqdaad saxaabiga la odhan jiray radiyallahu anhu ayaa habeenkii markuu jiibsanayo waxaa la yidhi uu galgalan jiray saasuu u galgalan jiray sida dheriga marka biyaha la saaro ee dabku ku ziyaaday biyuhu karsamaan siday biyuhu ay isku labaagediyaan ayuu habeenkii u galgalan jiray sidaas markaa bay xaaskiisu ku odhan jirtay maxaad la galgalanaysaa maad seexatida markaa buu ku odhan jiray cabsida aan naarta aan ka qabo ayaa habeenkii hurdada iga qaaday buu odhan jiray nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kuwii saxaabadu ku yidhi shibta nebi allow cirradii baa kugu badatay baryahane maxaa jira markaa buu nebigu yidhi shayabatnii huudu wa akhawaatuhaa suuratu huud iyo walaalaheed baa cirrada iga soo saaray buu rasuulku yidhi suuratu huud wa akhawaatuhaa عما يتساءلون إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت سورة ذاها قيامها كورمايا أيها النبي محمد عرضة كسو ساري سورة هود مركي الله بارينا آيات النبي محمد عرضة كسو سارتي وحي علماء كل شيئين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت waxaad ku toosnaataa sidii ilaahay uu ku amray adiga hawaacan istiqaamada markay culimmadu ka hadleen waxay yidhaahdeen waa laba buurood oo afiiqan dushooda u la dhigay oo la yidhi qof bini aadana halkaa dulmar siduu u soconayaa siduu socon degdeg u socon maayo cabsi buu ku marayaa halkaa cabsi فاستقم كما أمرت سيدي الله أمر كتوصنو حق إله إلالي حقوق ذا بني آدم كقوليهين إلالي مالك قيامة وحاتم عدا هذا بني آدم وحبك كقول شيئين آخرها حدات ماذا هذا وحلقوها يستو فاكي النبي يقولها أتدرون من المفلس قفك عيدا ميات قانان صحابة وحيد هذا عيد وحنون قانا أنكو قفك دينار يا درهم يا متاع وحبا أنا هيسن مرقاب النبي يقول قفك عيد واكي وبنك قيامه الله يمن دونا صلاة يا صون يا الزكاة يا حج الله يمن دونا لكن دad fara badan ba halka hor joogsan doona dadkaas isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkan waa idilay mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay xoolahaygay buu iga dhacay mid wuxuu leeyahay dhiig buu iga daadiyay markaas la oranayaa waxa li wuxuu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaado ayaka siiyo janno ku galiya markaa baa la oranayaa waliba dad kala hadhay oo adoonka ma aragtaan ku sheeganaya xaq
markaasaa ilaahay odhan doonaa dunuubta iyaku ay soo shaqaysteen ka soo qaado isaga madaxa u saara dadna naarta ku tuura walciyaadu billaah muflis qofka caydhu waa kaas khayrkuu soo shaqaystayna dad kale ayaa jannada ku aadoo jannada ku galay dembi dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa intoo madaxa loo saaray naarta lagu tuuray marka istiqaamadu waa maxay walaalayaal waa inaad ku xisaabtantaa mar walba adduunyada waxaad ka baxdaa adoo aan waxba lagugu sheegin wayna adag tahay ma arrinkaasi laakiin waa inaan toobad keenaa mar walba toobadda inoo furan waana ilaahay u soo noqonnaa daaru dunya joognaa maanta fursad baan haysanaa inagu dadkii adduunyada ka baxay fursad ay ku soo noqdaan ma haystaan way socdeen marka qalbigaaga mar walba ilaahay ha ku weynaado wallah haddii cadamatullaahi qalbiga ay degta bay culimmadu leeyihiin biqadri khawfaka min allah yahaabu alkhalqu minka وبقدر حبك لله عز وجل يحبك الخلق هاد بينت إلهي أدقو أتكعب صوتد أيا مخلوق أدق كاهي بسنيان هاد بينت أدقو إلهي أتجعلاتد أيا مخلوق نكو جعلانا يان هاد بينت إلهي كعب صوتد كن لي كما أريد أكون لك كما تريد حديث القدس إلهي بالله سدان ربانيك إيال ساد ربتنا أنا كوسي لي سدان ربنا ما أنت إنك تذكر دن محير ربان عريدي إنك بحام بين ربان فقر إنك بحام بين ربان ذل إنك بحام بين ربان مصايب إنك دح بحام بين ربان ضيق الصدر إنك بحام بين ربان وحالي وحاد كقبح لهيد عريرك الدنيا عريرك آخرة ومحي حرق إلهي قبصه واتي صحابي الربعي بن عامر وأشياء مارك تاني مدحي وين الرفرس رستم الله ابتعثنا إليكم بكيري رستم قائد قوات الجيش بها ربعي بن عامر بأوي مدول الله صادروا لي الأرض لصو هذا هذا دجال ربنا ديار بنونا هاي هذا صلح ربنا ديار بنونا هاي ربعي بن عامر مركوي مدي وعوري أنكو سداد نوم لين إنسان منهن وعانا دد إلى هاي الدنيا وصوا صاري بنا هاي يعني صوا صاري لا هي لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأذيان إلى عل الإسلام بكيري جيب وحنا الدوية أنك اسكمنوا إيمانه وما الله صو صاري بأنهاي ونبي جدي ولا الله صو صاري عليه الصلاة والسلام سيد النبي محمد عالم قال لو صو صاري إنه رسالة دو قارسيو أيا أنك هدانا يا أصحاب تيسي إلهي بأن صو صاري بكيري لنخرج من شاء سي أن وصارنا كيدونا عبادة أي عبودة يا نضومها السدودة ونصارنا ما ركتنا عبادة إله واحد كا وأري كمان مسلمين تو أي فهم لايهين ومن ضيق الدنيا عريرك الدنيا إنا كسرنا ضدك على نوك ينبود عنك ونصارنا إلى ساعتها نولش الدنيا بلع عيقي بلع كيكا ورقالادو عريري بيكون نوشا عريري بيكون جيران مسلم كمركو دين تدبو قاتنا سعة يكون جرا سعة في الرزق وسعة في المال بيكون جرا مهم كرسع يكون جرا سعة مهم كو عريري مقالايو نولش وحا عريري قلينا ومحي ومعصيدا نولش وحا سعادة قلينا وطاعة إلهي ساسو كوري صحابي قاس عريري الدنيا إنا نقص صارنا نو إيماني أنكو وني صار نولش الدنيا بلركيل يواسع نمديدا ومن جور الأديان أديان ظلمك إيا بانت إيا شركك إيا قال لماذا إيا خيانة كل سن إنا نقص صارنا أيا ندونك وإيمان نبود أنكو
oo nii saarno xagga cadaaladda islaamka jawr al-adyaan diinaha baadilka ku dhisan diinaha beenta ku dhisan diinaha dulmiga ku dhisan diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan u imanay inaan niga dhex saarno oon u saarno dadka maaragtay diinta cadaaladda ku dhisan islaamka marka Rustum bay aduma amiirkii ciidanka tahay may anu mid jamaacada muslimiinta kamida u baan ahay buu yiri markaas waan soo tashan doonaa iska soco ninbuu u yeedhay markaa Rustum wuxuu ku yidhi 3 maalmood waxaan rabaa muslimiinta inaad u tagtaan oo la cuntid oo la seexatid oo eegtid dadna marka aad soo noqotod iga warkeentid sidii buu yeelay waa cuyuun saxaabadu ninka la soo diray jaasuuska way garteen laakiin may dilina way iska dhaafeen 3 maalmood ninka jaasuuska ah markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa la yidhi boqorkii markaasuu ma waraaka ragga aad u tagteen ku diray bal ka waran buu ka yidhi markaasuu yidhi fursaanun bin nahaari wa ruhbaanun bil layl buu ku yidhi maalintiina waa fardo oo diinta ilaahay bay u halgamayaan oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin habeenkiina waa ruhbaan oo waa suufiyiin habeenkiina waa cubaad maba seexdaana gacmaha ilaahay hoos haystaan oo ilaahay bay baryayaan halka inagu khamriga aan cabaynana iyagu khamriga ma cabaan halka inagu ballanta aan baajinaynana iyagu ballanta ma baajiyaan halka inagu aan isdulmaynana iyagu cadaalad bay dhexdooda leeyihiin halka inagu aan kala sarreynana iyagu kala sarreyn male kooga faqiirka kooga qaniga kooga madaxa kooga mijaha ma kala taqaanid meel kaliya wax ku wada cunaan buu ka yidhi ballan hadday qaadaana ballanta kama baxaan beenna ma sheegaan khamrina ma cabbaan sida nolosha adduunyada inaku aan u jecel lahayna inay aakhiro tagaan bayaku ay jecel yihiin buu yidhi عجيب لئن كنت صدقتني لا يملكن ما تحت قدمي هاتي هدي تهي كرون شيغايا صفاتك ادي شيغيسد المسلمين تاد كو شيغيسد هدي مسلمين صفاتك اي ليهين كرسيغا يا خزائنت ذهبك هوستيدا تالا مالين اي قبسدان برغاس way qabsan doonaan buu ku yiri nolosha adduunyada raaxada adduunyada عزك الدنيا شرفت الدنيا هرمرك الدنيا خيرك الدنيا يا الله ولا ليال إيدتكم أنت أي رادين يا إلهي ملك لما قلن إلهي وحوق لي إن أمد إلهي أوصل نقطة بس إن إلهي الله صار نقطة أتوبوا إلى الله جميعا حكوا حقا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فلا أحبا دون إنسان ها صار نقطة هداد مسلمين هداد مؤمنين الليبان دون إنسان صار نقطة بيلاهين ليه جماعا ماها كلمة جمع كو صار نقطة أمدها صار نقطة توبت كانت تفلحون فلاح إلهي با فلاح شاقي والإسلام لماذا إلهي با كل شاقين لقول ليبان أيوه حي على الصلاة حي على الفلاح بمؤذن كلية صلاة حق يدعوك عليه الليبان حق يدعوك عليه صلاة والليبان صلاة ولا تكذا اللي يقول ليبان يا مهرد هذا وصلاة كوكو دافت اللي يقول ليبان أيو أمر كإلهي ولا قاتل اللي يقول ليبان قد أفلح هي الليبان ذاتك إيمان كلا الليبان يا صلاة دي بقى يقول لي والليبان تأوك عليه ليبان با إلهي شاقي إلهي با الليبان شاقي مركا الليبان تو دين تيكو جرتا دين تأسنا الحمد لله إنك إلهي دين تأوي النسي ونقول لي والله دادك ودنك كن نول بقلال كن أو جرب على الربا إلهي نكون شكرنا دل دين تودو مديسان تهي عقيدة تودو مديسان تهي مذهب كوغو مديسان يهي luqadoodu midaysan tahay ayaa ilaahay naga dhigay maanta innaka wadarkaasaan caalamka maanta waxa ka socda nicmada ilaahay na siiyay inaan ilaalshanno naga doonaya oo hareeraha ka wada joogno oo caamadeena iyo culamadeena tujaarteena fuqaradeena odayadeena dhalinyaradeenna dawladeena shacabkeena waxaan ku faanaynaa waa diin waxa la rabaa inaan diinteena ilaalshanno naga rabaa
diintan saan ku ilaalinaynaa markaas waa in qalbigeena ku weynaataa diintu kow marka labaadna nolosheena diintu waa ina ka muuqataa oo mujtamaceena waa ina diintu ka muuqataa dhallinyaradeenna waa ina diintu ka muuqataa wiilasheena diin waa ina ka muuqataa gabdhaheena waa ina diini ka muuqataa tijaaraddeena diini waa ina ka muuqataa xukuumaddeena diini waa ina ka muuqataa mujtamac diiniya loo baahan yahay ummaddu inay isku bedisho laana zamankan maanta aan gallay waa zamankii diinta qof diin haysta unbaa badbaadiya ogow qof diin haysta unbaa la jecel yahay zamankan waa zamankii diinta weeyaan nabigeennaa sii sheegay sal allahu alayh wasalam almutamasiku bidiinihi kalqaabid cala aljamra waa zaman ayaa imanaya buu nebigu yidhi sunnadayda ninka yidhahda waan qabsanayaa uu la mid yahay nin dhamac haysta ha sii dayna xajiso waayo fasaadkaa badanaya sharkaa badanaya haddana sunnaha noolaanaya waa ka nebigu sheegaya ka sunnaha qabsada zamankaas waxa uu la mid yahay nin dhamaxaya buu nebigu yidhi dhamac ma hayn karaysid laakiin xajiso lilcaamili fiihinna ajru 50 rajulan ninka diinta sunnada markaa qabsada 50 nin ajarkood buu nebigu yidhi ayuu qaadanayaa saxaabi baa sare kacoo yidhi man 50 annaka mise waa 50 iyaka ah maya waa 50 ininkaa buu rasuulku ku yidhi 50 ininka fi sunan tirmidhi 50 asxaabtii nebi maxamed ajarkoodii buu qaadan maanta ninka zamanka diinta qabsada فنتمسك دينتنا نقبسنا إن شاء الله هذا دلنيردنا علماءنا عمدنا جزاكم الله خير الله ينجى جزاء السيو سادو سوق بشان كلن كعاوة علماء أي نقوم مرتقى علينا أنكو أرضي بانها علماء منهن ساجد كان مركز العلمي ummad oo dhan baa ka faa'iideysata cilmiga halka culimadu ay ka bixiyaan runtii meel kasto ay joogaan dadka af Soomaaliga ku hadla masaa'isha diiniga sheekheena jazaahullahu khayr halka ka bixinayo caalamka oo dhan baa ka faa'iideysta maanta marka anagu inaan hortooda ku hadalno ma ahayn laakiin haddana waa talab waa nasiixa weeyaan anagu caamadan wacdinaa inta badan tujaartu waa laba qaybood qolo waxaa jirta jumladlayaal oo badaacada jumlad bay ku keenaan iyo qolo waxaa jirta tafaariiqlayaal Soomaa bagaashlayaasha hadee labada ma kala maarmayaan ma kala maarmaan anagu marka tafaariiqlayaal baanahay xadiiska culimada aan ka maqalo ayaan maalin batuulo gaarsiinaa caamadana waxaan leenahay caamoy culimada garab han siino seen garab culimada u siinayna wixii culimadeena aan ka maqalo ummadda han gaarsiino طفيل بن عمرو الدوسي انتي نبينا او كم مغلي ايو يري تولكي انا غارسيني يدر بوكيدي تولكي اني امرؤ لمطاع في قومي نين وحانا ددكي سؤاد دغيستان نبي الله وشاعره ادر وادر النبي صلى الله عليه وسلم marka uu soo noqdo uu calaamad la igu gartay ilaahay weydii markaas uu nabigu ilaahay u bariyay wajigiisa intaas ay iftiimaysay baa la yiri markuu dhaxdaas sii marayo ayuu ducaystay wuxuu yiri yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaas iyadoo way cadaanaysaa marka waxay ii maleynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsiga dhacday u maleynayaan ilaahu nuurka halkan iga qaado jeedalka faraskayga la dhacay iftiinka igu bedel buu yiri والله ugu badilay waa nin shalay islaamay ayaa ducadiisa la aqbalaya inakana ducadeena ka warama maanta ya nin shalay islaama karaamaadka durba ka daahiraysa iyo nusradii inaka diinta islaamka ku dhalanayna ma aaminsanin ducadeena la aqbalaya maanta uu tagay waxa ninkaas tolkii karaamo ula tagay karaamo nabiga karaamo weydiistay karaamadiina waa la siiyay waxa la yiri in yar baa ka soo rumaysay intooda badan way diideen marka uu ku soo noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu nabiga u yimid uu ku yiri reedows ilaahay iyo rasuulkiisa way caasiyeen habaar buu nabi allah ilaahay habaabiye marka uu nabigu qiblada u jeestay gacmuhu kor u taagay saxaabadu waxay u maleeyeen nabigu inuu habaartamayo waxay yiraahdeen reedows way halaagsameen maanta marka uu nabigu ilaahu reedows soo hadee qalbigoogana adiga haya ilaahu diinta jeclaysi buu yiri مو هبار مسوي دعي دعاء هوريس طفيل بن عمرو الدوسي من النبي يقول يا ري هذيك أنا وحى وكور طفيلو مرقد مدة خير قادو شيء يسد
oo dhibri buu ka yidhi oo dadka isjeclaysii ha farxin dadka nahjigii dacwadana isagii baa laga saxay waana u duceeyey nebigu labadaa buu la noqday laba sifo cajiiba dacwad ku salaysan dabeecad wanaagsan iyo duco labadiiba kula noqday qoomkiisa can bakrati abihim reer Daws oo Abaa Hurayrana uu dhex socdo ayuu nebiga ugu keenay iyagoo soo wada islaamay Madiinada al-Munawwara karaamadii kuma islaamin waxay ku islaameen akhlaaqdii iyo ducadii intii nebiga uu ka maqlayna ummadiisa u gaarsiiyey innagana maanta inteena raggeena halkaa fadhiya guryahan ku noqonayno waxa laga yaabaa hadday 7 qof aqalka ku soo yeeynaysa habeenkii in ama 2 ay ka tukato ama 3 ka tukato taariikhdu salaaqa loo dhex fadhiyana ka warrama marka dacwadda ma aha mas'uuliyad culimada kaliya saaran hamoodina ummadan ilaahay ba shaqada diinta ugu talagalay inay ka shaqayso إن شاء الله علمك علماء أن كقادنا جملة كقادنا إنه تفاريغ لنا قضايا وديار ومدة قارسيو يا ما شاء الله الله ينبارك يا جزاكم الله خير سلام نوصل دويسنا الله نوصل دويو كل جينا جنة الفردوس الله ينقو كل ميو وحق أنكو هذا الله ما ركتنا وحي أنا سيمنا إلهي بأن وفجيي وحي أنقفنا وقف حقيقة كيمدي إلهي بأن دمدا فويدي سننا وصلى الله على سيدنا محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أمنك الله إنه زياديو إيمانك الله إنه أتكيو dad badan oo walaalaheena ducadoon xanuunsan caafimaad sariic Allah siiyo qof walba ku kurbaysan kurbada Allah ka qaado muslimiintana meel kasta adduunka joogan muwaafiqiin midnimana Allah siiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad